بسم الله الرحمن الرحيم aad baa u mahadsantahay idinka iyo dhageystayaashuba arinta garbaharey hadii siday tahay loo waro ama dariiqeeda ama sharcigu sidoo ah loo marana waa fududaanaysaa hadii wajiga ay ku socoto oo mudooyinkan 3 sano u dambeysay arinta gobolka Gadal siyaasadeeyay oo si maamulku oo san raali ka ahayn loo marayna hadii waxay noqonaysaa mindi meesheeda ku taag bay noqonaysaa dib u dhacna waa imaan doonaa doorashada dib u dhac ku imaanaya marka sideeda waxa fiican wax aan lagu heshiin karin hadii meesha gacmo isardinayo siyaasadeed baa ku jira hadii inta meesha gacmaha siyaasadeed ku jira laga saaro loo madax banaaneeyo maamulka meesha ka taliya oo xukuumadda loo madax banaaneeyo ayaga iyo shacabku marka wada toosan bay ku heshiinayaan marka waxaad moodaa arintaas 16 ka xildhibaan in si aad u weyn oo runtii meel laga soo ceshaanay in loo siyaasadeeyay baan uu kulay warka waa tahay suuragal ma tahay in garbaharey marka la sabab u noqoto dib u dhac doorasho aad iyo aad sabab u noqon kartaa hadii waaba sheego waxay sabab u noqon kartaa siyaasadaha isdiidan hadii inta la joojiyo loo madax banaaneeyo dawlad goboleedka Jubbaland loo madax banaaneeyo iyo guddiga doorashada loo madax banaaneeyo dadka deegaanka iyagu waa hadal fiican baa dhex maray waana ku soo gabagabaysaa laakiin arintu inta waa ka weynto gacmo kale oo dhinaca dawladda ku jirta taasna waxay dib u dhac u tahay inay dib u dhacdo xilligii doorashooyinka madaxweynaha doorashadiisu inay dib u dhacdo maxaa yeelay baarlamaanku wax dhib ma lahan oo baarlamaanku mar hadduu kooran ku dhayahay waa la dooran karaa baarlamaanka guddoon iyo guddoon ku xigeen waa la dooran karaa laakiin marna waxaan la dooran karin oo dib u dhac weyn ka imaanaysa hal xildhibaan intuu ka maqan yahay doorasho madaxweyne ma dhacayso marka taasa uun culays keenaysa maahan baarlamaanka fadhigiisa wax culays ma keenayso culayska ugu weyn wuxuu ka imaanayaa waa doorashadii madaxweynaha oo inta hal kursi meesha ka maqan yahay madaxweyne lama dooran karo taasuna waa dib u dhac imaan doonay ka mid waa tahay qadka igu jir xildhibaane waxaan siinayaa Idris Xasan Faarax Idris waad arkaysaa dooda xildhibaan Cabdi Barre adigu maxaad ku qiimeeyay xaaladda garbaharey iyo sida ay haatan tahaba bismillaah wa salaamaya dhamaan dhageystayaasha Soomaaliyeed ee kasta ay joogaan waxaan kala salaamayaa saaxiibkay Cabdi Barre waa salaamayahay inta markii laga soo tago dabcan waxaan aaminsanahay wixii dhacay iyo wada hadalladii iyo heshiisyadii la gaaray iyo qaabkii doorashada ay u dhacayso iyo meelaha ka dhacayso waxaasoo dhan waa lagu heshiiyey marka mar haddii la heshiiyo qofka runtii heshiisyada jebinahayo oo wixii lagu heshiiyey baal marahayo waxa weeye waa calaamatul munaafiqiin baa munaafaqnimo waay marka waxa loo baahan yahay wixii lagu heshiiyey waad ogtihiin garbaharey iyo Kismaayo way kala dhinteen waxay isu hayaana lama arko ayadoo ay saas tahay baa wada hadal dheer iyo dood dhalan iyo wax la isu soo dhaweeyey heshiisya laga gaaray habraac baa la sameeyey marka habraaca ninka uu ka fuliila yahay waxa weeye waa Axmed Madoobe heshiiskana galay haddana waxaan malaynayaa hagla geel wax gunti la geliya ka weyn baa layidhi marka gedo haddee maamul goonidiisa u taagan oo aan Kismaayo laga xukumin oo heshiisyadii lagu heshiiyo inta la baal maro hab kale oo lagu xallin karo anugu ma garanayo waata waxaan rabaa halkaas inaan su'aal kaa weydiiyo haddii magaalada garbaharey iyo gobolkii doorashada lagu qabanayo uusan maamulkii ka talin lagana soo horjeedo maamulkaas dhismihiisa ama guud ahaanba haykalka maamulnimo ee Jubbaland aan laga aqoonsanayn garbaharey sidee ayaa loogu qaban karaa doorasho waxaan rabaa inaad dul istaagto su'aashaas oo aad cadeyso dabcan iyadoo sida ay tahay baa wada hadalay iyo heshiisyo laga gaaray sida loogu qabanayo waxa fiican moogtahay heshiisku ma ahan maanta heshiis kula galaya brina waa ka baxaya ma ahan waxaas ayadoo ay jirto ayaa intaas oo shirar la galay heshiisyo laga gaaray qaabkii maaragtay doorashada uga dhici lahayd lagu heshiiyey intii qaban lahayd lagu heshiiyey sidii loo qaban lahaa lagu heshiiyey guddiyadii u dambeeyey oo maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha ay loo xil saaray soo dhameeyeen ra'iisul wasaaruhu tagay soo dhameeyey marka hawshaas waxa la soo gabagabeeyay weeye cid kale
kale oo wax ka bedeli kartana ma jirto wixii inta ka badan waa waqti lumis iyo maxaan ku raahdaa iyo maaragtay qofku inuu nacayb iyo xujo la yimaado una waxna ugu badanay waxaa khasaba in lagu qabto Garbaharey doorasho عندي كوكبان لهايد يصير الله كبان لهايد نوال وهشيء وإلا فليا وخصب ما دام الوهشيء واتا يوجد قد كإدريس وحنسينا مركان حلبان هو عبد البره كل كهر مرة هذا واحد شكتي إن السياسة دينا يو حالات ده قبل كي الدورشة كجر تبع يا سياسة دينا يو horta ma santiin saaxiibka Idris horta waa mahadsan yahay Idris meel wanaagsan buu dhigay laakiin meesha waxa ka maqan oo uusan Idris tilmaamin horta sida uu u sheegay waa run maamulka Jubbaland buu gobolka ka tirsan tahay habraac soo u sheegana waa sax oo sida habraac u sheegay habraac u qoran yahay laakiin habraaci dadkii deegaanka ka soo horjeedsaday oo ayagu inkirsanba maamulka Axmedoobe aan muxuu ahaa taageersan ka soo horjeeda horta taasa murankan keentay oo hadii waxa weeye maamul mar hadii doorasho meesha ka dhacaysa madaxweynaha iyo wafdi wasiiradiisu inay meeshii tagaan oo ayagu iyo guddiga doorashooyinka oo ayagu sidii ay wax loo dooranay ay arrintii uga qayb qaataan taasna hadii waxa diidan waxa weeye waa dadkii deegaanka diiday oo ka hor yimid horta mid waa mid taasaan rabo horta inaan saxo oo maamulku uusan asoo waxba diidanayn midaan kale oo leeyahay siyaasadeeyeen hadii adeer waad ogtihiin muxuu ahaa waxa gobolka ka taagan ciidamada sidii loogu daadgureynayay sidii meesha dhibaato badan uga dhacaysay in maamulkii iyo dawladda Jubbaland maamulka ka tirsanaa dawladda dhexe la wareegtay oo ciidamadii la wareegtay oo barasaabiyada xirxirtay gobolka jooga xirxirtay kuwa hor loo maartay maamulku uusan shaqo ku lahayn magacowday te siyaasaddu halkaas ka socotaa maartay wax cad oo muuqdan in la inkarmaan dibka maanta gada ka taagan anigu waxaan u aaninayaa qolada filla Soomaaliya ka taris inay dibkaas ayagu mas'uul ka yihiin oo deegaankiina aan dan u hayn horumarna aan gaarsiin ciidan iyo hubna ku daldalahayay qalalaasa badanna ka samaysay taasa marka salka waxay ku haysaa wax kasta oo maamulku meesha ka sameyn lahaa in dadkii deegaanka ka horyaamayn taasa sabab u ahayd marka meesha sartu ka qorantay waa in farta lagu fiiqay la taabtaa waxaan rabaa xildhibaane haddii guddiga doorashooyinka waxa gada jooga waa ciidan Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidankii qaranka oo Kismaayo kuwa jooga kuwa lamid ayaa jooga magaaladaas oo wax dhibaato oo hadda amni darra lagama soo sheegin maxaa ka hortaagan guddigu inay ugu horeen tagaanba guddiga doorashooyinka ee maamulka inay tagaan oo ay qiimeeyaan xaaladda iyo caqabadaha haystaan ay sheegaan meel aan guddigu tagin sidee loo oran karaa doorasho lagu qaban karaa ama lagu qaban karaa horta mid waa ka saxayayo dawladda dhexe awood iyadu uma lahan maamul dhisan inay ciidamada dulgeyso ay kala firdhiso iyadoon maamulkii aan la tashan oo tale ay la sideen inta ciidamada meel la geeyo wixii doon laga sameeyo dastuurka inoo qoran kuma qorna kan maamulkana uma qormartaa waan ka saxayaa midaan kaleeto oo guddiga doorashaduna in la diiday oo kii heer dawlad goboleed iyo kii heer federaal oo xataa la diri lahaa oo la oran lahaa soo qiimeeyo la yiri intaba maamulku ma diidin waxa diidan dadkii deegaanka gobolka Garbaharey baa diiday asbaabtii u diideen ayaga inay su'aasha weydiisid baa fiican wata igu jira qadka waxaan siinaa markaa Idris Xasan Faarax Idris waad maqlaysaa dooda xildhibaan Cabdi Barre haddii maamulkii iyo dadkii deegaanka ay digeen guddiga doorashada gaar ahaan guddiga qiimeynta waxa ku jiray guddoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan xalinta khilaafaadka iyo xubno kale oo Jubbaland hadiiba guddigaas laga diiday Garbaharey oo guddiga doorashada loo diiday inuu tago magaalada sidee doorasho lagu qaban karaa oo lagu dooday in dood lagu qabto maya taas ma jirto guddiga doorashada mana tegin loomana diidin gacmo furanna waa lagu soo dhaweynayaa laakiin waxa la diiday waxa weeye guddigan cusub oo uu roob la magacaabay weeye waxa la diiday guddigaasna kuma jirto habraaci iyo xeerarkii iyo wixii lagu heshiiyeyna kuma jirin laakiin guddigan laakiin aan ka dhex galo guddigan Idris oo uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu waxa guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiye ku-xigeen labaadba ka ah ama xubnaha ugu horey kamid ah guddoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo kan xalinta khilaafaadka maya waxaan wax lagu heshiiyey weeye mar haddii la heshiiyo habraac baa la sameeyey kuma jirin habraacaas in maartay guddi cusub la magacaabo kuma jirin waxa ugu dambeeyey guddiga wasiirada maxaan ku raahdaa bisha loo diray baa ugu dambeeyey iyo
prime ministerki waxaan waa hore lagu heshiiyay dhammaan wax kasta wax dambo oo wax laga bedeli karana male inta markaan ku soo gudbo haddaan u soo laabto saaxiibkay Cabdi Barre horta runtii waxa Soomaalidu isku haysta waa siyaasad waay maadaama siyaasad isku hayno waxa loo baahan yahay siyaasadda la isku hayo wixii macquul ah oo maaragtay ku mari karto ama aad goosan kartana inaad goosato wixii kale ee mataqaana la isugu yimaado oo la kala goostana lagu heshiiyo lagu kala tago waxa la yiraahdaa siyaasaddu waxa afka qalaad lagu yiraahdaa waa give and take waa qaado waa si adna qaado ayaa lagu sameeyaa marka qofku hadduu raajo inuu 100% asagu helo qofkii kalena eber laga soo qaado taas macnaha dee ma soo siyaasadda kuma jirto horta inaan fahanaa wixii wax la wada leeyahay weeye ma wada heli kartid mana wada heli karo waa la kala goostay mar haddii la kala goostayna sidii lagu kala goostay waa in lagu heshiyaa tusaale haddaan soo qaado Garbaharey waxay ahayd in lagu qabto 24 kursi 24 kursi oo ay ahayd in Garbaharey lagu qabto Axmed Madoobe wuxuu ku dhagay maadaama madaxweyne ahay 8 halaysiyo 8 baa loo reebay kadibna 16 soo hartay buu haddana wali ugu dhagay macnaha dee u fiirso waxa haddii lagu heshiiyo oo la qaybsado waxa fiican in qof walba qaybtiisa uu iimaansado sidaana lagu kala tago ilaa moogtay waxaan qaybsanayn in la qaybsado maaha marka waxaa loo baahan yahay waxaan rabaa in siyaasadda inta la fahmo in wax la qaybsado markii wax la qaybsado oo la heshiiyo nin walba adkii uu ku heshiiyo marka uu qaybta u helay oo lagu heshiiyay la isku waafaqay in la fuliyaa fiican wata Idris waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maalin walba qofka geed laga sii saaro sax ma mid kale ciidamadan la geeyay gobolka Gedo horta ciidamadu meel kasta ay joogeen beledweyne la geynayay waxa la geynayay Dhuusamareeb baa la geynayay intaasoo meelood baa la geeyay Jowhar la geeyay waxaasoo dhan waa la geynayay tan marka maadaama madaxweyne Farmaajo uu yahay waxa way waa lagu xumaynayo la sii magac xumaynaya waay dabcan waxaan rabaa dhibaatada halkaas ay ka timid marka Axmed Madoobe iyo Kenyaatiga la socdo waxa ay sameynayaan Idris waxaan rabaa halkaasna aad nagu hakiso oo dee inaan u gudbo marnabno arrinta Kenya iyo Jubaland iyo Soomaaliya waa mowduuc kale waxaan rabaa Garbaharey iyo guud ahaan gobolka 16 kursi ee yaalo maxaa ku jaban haddii inta dib loo dhigo oo maadaama khilaafaad ka taagan yihiin oo la isku hayo sida loo qabanayo iyo goobta lagu qabanayo iyo xaaladaha amni iyo guud ahaanba sheekooyinka ku gadaama kuraastaas maxaa hortaagan haddii inta laga gudbo kuraastaas la qabto doorashada guddoonka iyo madaxweynaha dibna maamulka yimaada ee wadanka taladeeda la wareega ay dib u doorashadaas u qabtaan ما suuragal ma ahan waxa weey hadii mar la heshiiyo dadku horta Soomaalidu heshiiska uu ku adag yahay uu la fudud yahay war hadii la heshiiyo oo ummadii heshiiso dad madaxa heshiiyaan oo wax la isku raaco in la fuliyo waayo maxaa yeelay habraacan ayadoo mushkilada gobolka Gedo iyo Kismaayo jirto ayaa dib fara badan iyo shirar fara badan iyo mushaakil fara badan laga soo wada hadla dadka ka wada hadlayana waa dad ay ka dhaxayso maaragtay labadan magaalood iyo labada doorasho ay ka dhaxayso waay marka haday wax dad kala dhaxeeyaan waxa loo baahan yahay wada hadalkii la galay iyo wixii lagu heshiiyay in la fuliyo waay wax qof kaliya iska leeyahay Axmed Madoobe halkaas igu sin ana iska maamulanaya sax ma aha halkaas igu sin marka waa tahay igu jira qadka xilbaan hore Cabdi Barre waa tahay qadka ayaa ka yara cuslaaday xilbaan hore Cabdi Barre waan sugayno dib ugu soo laabto Idris hadii xilbaan hore Cabdi Barre hadii aad maqlayso Garbaharey kuraasta taalo maxaa ku jaban hadii inta laga gudbo la qabto doorashada golaha shacabka guddoonkeeda iyo aqalka saraba iyo guud ahaanba mid madaxweynaha dibna maamulka talada dalka la wareego u qabto 16 kursi ee hadda la isku hayo qabashada doorashadooda horta horana waa u sheegay haddana waan ku celinayaa hal xildhibaan intuu ka maqan yahay doorasho madaxweyne ma dhici karto baarlamaanku waa fariisan karaa koramku hadduu dhan yahay guddoonkii baarlamaanka way dooran karaan ku-xigeenka way dooran karaan way sii shaqayn karaan oo shuruucdii doorashada way sii diyaarin karaan laakiin
labada aqal markii la isku daro waa 329 xildhibaan hal qof intuu ka maqan yahay madaxweyne lama qaban karo maxaa yeelay madaxweyne kasta wuxuu ku xisaabtamaya codku ku xisaabtamaya sharcina maahan nidaamna maahan in la yiraahdo xildhibaan 12 xildhibaan baa maqan doorasho ha dhacdo midna sharcigu ma ogolaanayo taa macnaheedu waxa weeye war waa fowdo aanu dalka ka sameeyno saan doono aan u hadalno horta waxa fiican sharciga iyo nidaamka horta saa in loo kala hago midaan arrintan dib u dhaca waxa keenayana waxa weeye saaxiibkay Idris wuxuu yiri habraac baa la sareeyay waxba lagu heshiiyay waa run habraac lagu heshiiyay habraacu laakiin meelna kagama qornayn in qabiilku wax diidi karo in gobol wax diidi karo waa in gobolkaas yaa xukuma yaa mas'uul ka ah Jubbaland baa xukunta inay u madax banaantay iyadoo 16 ka xildhibaan waa in dawladda Jubbaland ay maamusha wasiiradii tagaan madaxweyne ku-xigeenkii tagaa ama madaxweynihii tagaa oo ayagu ay maamulkii wadaan oo hawshii ay wadaan markaasna doorashadu sida ahayd loo qabtaa laakiin marna ma dhacayso ee la imaan karo annaga saan doonayeenayna nidaamka marka waxaan rabaa saaxiibka Idris inaan xasuusiyo nidaamkii iyo habraacu kuma ayna jirin in maaragtay maamulku uusan doorashada qaban karin ayadoo 16 kaas taagantahay waa tagay arag hadda galmudug waxa ka socda qorqor gaalka ayuu jooga doorasho waday madaxweynaha Jubbaland Puntland wuxuu tagay dhuusan baydhabo tagay boosaas tagay uu ka soo qabtay marka waxa weeye nidaamkaas sidaas u ahaa ma ahan in la hor istaago maamulkii la yiraahdo muxuu ahaa ma imaan karaan mana magaciisoobi karaan waxa yeelay meesha cid wax ma marogsanayso dadka deegaanku waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeen bay leeyihiin 19 xildhibaan bay leeyihiin wasiiray leeyihiin intii oo dhanba waa laga mamnuucay in doorashada tagi karin meeshii ka qayb gali karin waa la mamnuuca marka sartu meeshii ka qurusan tahay waa la ogyahay halkaas aynu abaarno aynu inta soo duuduubno aynu doorashadan aynu aadno hal ogolaado 16 xildhibaan maamulku inuu meeshii tago in doorashadii la soo qabto ciidu ma xoogayso ergadii la soo qoro habraaci la soo qoro laakiin waa in maamulku jooga waa in dawladda Jubbaland joogta ama madaxweyne ku-xigeenka ha joogo ama wasiiraha loo diro ama madaxweynaha ha joogo waa khasab maamulka Jubbaland bay halka xukumo ay hoos timaada waa gobol kamida in doorashadu sidaas u dhacdo sida gobolada kale uga dhacayso maxaa diidan maxaa loo hor istaaga sabab taas isweydiin mudan waa tahay oo ku soo gabagabeynaa ama guud ahaanba dooda Garbaharre ayaan soo gabagabeynaynaa hadaa adiga ku siiyo xalku muxuu ku jiraa ay kula tahay guud ahaan doorashooyinka teemka waqtiga la haysto iyo xaaladda Garbaharre adoo isku soo koobaya xalka muxuu ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa maamulka Jubbaland in loo madax banaaneeyo doorashada ayagu ay doorashada soo qabtaan oo gobolkii lagu soo qabto oo isimada gobolka iyo nabadoonadii ay soo xulaan ergadii soo xulaan oo shantii qof soo xulaan oo goobjoog u ahaadeen guddiga doorashadu ay tagaan maamulkii laakiin doorashadii uu hagaa oo sidaa wax ku soo gabagabaan sida nidaamku yahay oo lagu heshiiyay waa sidaas arrintan kale oo doorashaduna inta ay ku socoto xaalkeedu khatar ba ku jira waxa fiican dalkan in loo naxo dalka inaan shakhsi la fiirin inaan mindi ku taaglo oran sidaas aynu dawladnimo iyo maaragtay ku hana qaadaynaay wadada fiican aan marno waa iigu jira xildhibaan waa soo gabagabeyn doonaa Idris Xasan Faarax adna soo dhawow halku muxuu ku jiraa dabcan waxaan filayaa walaalkay Cabdi Barre waxa fiican in runtii anoo aad u ixtiraamayo waxa lagu heshiiyay haddana waan xasuusinayaa waxa lagu heshiiyay maamulka maaragtay magaalada Garbaharre gudoomiye ku-xigeen in 4 maamulka ay soo magacaabaan maaragtay odayaasha iyo dhaqanka ay soo magacaabaan isla mar ahaantaasna Axmed Madoobe 4 qof loo diro 2 uu soo magacaabo amisom la geeyo ciidamo amisom la geeyo waa la geeyay horta habraaci maaragtay dhammaan habraacu wuxuu qorayaa in maamulka gobolka Gedo uu qabto doorashadaas guddiga maaragtay maxaan ku raahdaa federaalka iyo kan maamulka maamul goboleedka Jubbaland ay qabtaan sidaana waa lagu heshiiyay wax walba waa lagu heshiiyay habraacyadii waa lagu heshiiyay wax dambe oo ku harayna ma jirto haddaan la isin tiraynin Axmed Madoobe asaga 4 nin haysto 8 bilood haysto soo magacaabi waayay suuragalna ma ahan waa walaalka saaxiibka Cabdi Barre waa inuu ogaadaa Garbaharre ma aqbalayso horeyna uma aqbalin inuu Axmed Madoobe xukumo waana calaacal tima ka soo baxday
sidaa darteed waxaa weeye iyadoo dhibkaas ay jiro waqti badan baa lagu lumiyey waa laga wada hadlay doorashadii habka lagu qabanayo Garbaharey ooga dhacayso waa laga wada hadlay Axmed Madoobe 16 kursi oo boobo ma haysano kuwii Kismaayo uu boobay Allah ku anfaco ma laga yeelayo mana dhacayso mana dhici doonto iyadoo dhibkaas oo jiro wax walba ay jiro waa laga heshiiyey heshiiskii waa in la fuliyaa waa hadii sheeko cusub la keeno sheekadaas cusub saaxiibkay ma soconayso maamulka gobolka Maankurada Kismaayo ka jirana waxyi ma ahan gada kuma khasbano wax walba in la wadaagay u baahan tahay xukun maamul hadii la sameeyo maamulka in raalli isla isaga yahay baa loo baahan yahay